بسم الله. waxaa la soo weydiiyey su'aal sidee baan isaga dayn karaa siigada sidee isaga dayn karaa waan qabatimay la'aanteed ma joogi karo sometimes waxaan daawadaa filimada xunxun waan qabatimay iskama dayn karo sidee baan isaga daayaa waa dareemi karaa waxaad isaga dayn kartaa horta marka u horeysa waa inaad ogaato inaad addiction qabtid addictionkuna waxaa weeye waa waxaad la qabatintay oo aadan joogi karin adoo sameeya mooyaane marka naftaadiba waxaa kaa dhaadhicinaysaa ilaa aad waxa samaysid mooye ma noolaan kartid waa survival mode baad u samaynaysaa waa naftaadii ma dayn karto iyadoo samaysa mooyaane waxay qabtaa inaadan joogi karin marka waxaa jira waxyaala ku sahlaya ama inaad samaysid ama kicinaya waxaa ka mid oo kale haddaa instagram iyo facebook iyo snapchat iyo haddii naaga badinay kuugu jiraan dee markaad aragtid mid islushayba halkaas isla markiiba way kacaysaa haddaad boonka yani filimada xunxun iyo waxaad internetka ku waalan tahay waad furataa haddaad habeenkii boorin noqotid oo kale oo sariirta kaligaa tagtid waad furaysaa haddii aad xanaaqdid waad furaysaa waxyaalahaasoo dhan way kiciyaan maxaa kalo oo aan kaga hortegi karaayo aad samayn kartaa horta waa inaad social mediaha dagaal ku qaadid oo horta badanaaba youtube-ka iyo naagaha ka daasgaraya waxaa soo baxay gabdho lacag ka samaynaya oo wiilasha qalbiga ka xanuunsanaya ee waxaan addictive ku noqda lacag ka samaynayo oo naasa yaryari daba yar saa u ruxayo oo clickbait baa layahay lacag bay ka samaynayaan markii aad click samaysid ba lacag bay ka samaynayaan intaas attention doonayo lacag kaa samaynaya baa jira waa inaad ogaato horta in lacag lagaa samaynayo adna aad nin xanuunsan tahay marka instagram iyo naagahan dabada ruuxa youtube-ka iyo facebook kuwa iswalaaqaya snapchat horta isagu waaba iyo instagram horta labadaa marka u horeysa waa inaad diilidgalaysid boonkana waa inaad soo dejisatid waxyaalaha balaagareeya oo mar allaale markaas tiraahid gal kaa xidhaya waa inaad soo dejisatid cuntada waa inaad bedeshid daayatkaaga waa inaad bedeshid dadla socodkaaga iyo gurigaaga iyo hawlahaaga waa inaad bedeshid cuntada I'm telling you haddaad doonaysid inaad iska daysid siigada waa recipe aan ku siinaya weeye haddaad hilib cuntid maalin kasta haddaad hilib cuntid oo qaad cuntid oo soodho cabtid mando iyo soodho iyo faanto iyo waxyaalaha lamidka haddaad cabtid aad sigaarka maaha any drugs oo kale aad qaadatid waxaa layahaa kaafi shaah kaafi aad cabtid there is nothing I can do for you brother khasab waa habeenkaas waxa weeye waad sigaysanaysaa wax kasta oo bloodkaaga kicinaya oo sugarkaaga kicinaya sida xitaa white flowerka cuntadoo kale dairy cuntada caanaha oo kale hilibka oo kale white flowerka oo kale baastadoo kale briiska oo kale any fast food horta fast food cuntooyinka qashinka ee makhaayadoo kariyaan haddaad rabtid in sexualkaagu dego oo aad ka adkaatid waxan waa inaad qudaar iyo cunto iyo soon iyo diintu waa nasteexa diintu waxa weeye waxa kuu dara bay kuu sheegaysaa soon baa lagu yihi soon marka waa inaad gaajo daayid cunto qudaar iyo waxa juus markaasaad qaban kartaa ka adkaan kartaa teeda kale mar allaale markaad dareentid number one thing aa samaynaysa waxa weeye breathe neeftaada jinjig bedeleysaa waxa weeye neeftaada bedeleysaa neeftaada markaad bedesid kulligaayo dhan baa isbedelayay si kasta oo ku haya oo aad khaati tahay biyo afka kusoo taagan yihiin haddaad neeftaada aad focus galaysid oo neeftaada attention siisid oo deep breathing yacni aad neefsasho dheer qaadatid oo
ka neefsatid caloosha ka neefsatid oo neeftaada tiraahid waa kaa jabayaa waa inaad neefsashada samaysid. teeda kale 3 jeer maalintii waa inaad biyo qabow ku qubaysata. mar allaale markaas ku aragtid inaad shahwada ku haysato waa inaad biyo qabow ku qubaysataa. biyaha qabow way jabiyaan. biyo qabow markaad ku qubaysatid waa kaa guurayaan, waxay waa kaa guurayaan. exercise waa inaad gym sporti waa inaad gashaa. xitaa gameka gacanta lagu ciyaarana ha ahaadee laadhuuna ha ahaadee waa inaad gashaa waxyaalahaas oo aad ka carartaa boring. haddaad keligaa noqotid oo sariir keligaa ku noqotid ama guriga keligaa ku noqotid ama telefoonkaaga la kala yeelatid waa khasab, waxa weeye waad samaynaysaa. telefoonka iyo kombyuutarkaba waxa weeye sariirtaada waad ka fogeynaysaa, la tegi maysa sariirta. waxaad geynaysaa kombyuutarka, waxaad geynaysaa guriga hoos baad geynaysaa, fadhigaad geynaysaa meel dadku wada joogaan oo aadan la keliyeysanayn baya. waa haddaad rabtid inaad la dagaalantid waxaadna ogaanaysaa waxay inay addiction yihiin, aadna rabtid inaad bedeshid. 2 week isii, 3 week isii, 1 month haddaad ka adkaatid waxaa kugu dhici doonaa, waad isbedeli doontaa. waxaad noqonaysaa first week horta cara iyo waxaad isku arkaysaa xanuun badan ode ma celin kartid waxan waa wax imtixaan. waa inaad jimka aadid first week. second week waad ka yar adkaanaysaa, caadi baad noqonaysaa. weeka 3aad ka afraad waad ka adkaanaysaa, laakiinse waxaadan ka adkaan doonin riyo. habeen kasta riyo baad isku sii daynaysaa biyihii oo dhan. taas waa caafimaad oo maskaxdaada isnormal garaynaysa oo caadi baad kusoo noqonaysaa. 3 bilood markaad wadid dib dambe wixii kugu soo noqon maayaan, xanuunkii kugu soo geli maayo. waxaad noqonaysaa waa caafimaad qaba baad noqonaysaa. naag kuu sheekaysay oo kaa qoslisay oo ku farax gelisay oo aad ka heshay mooyaane wixii ku soo jiidan maayaan. boobkii iyo wixii iyo naga yiraa dabada ruuxay Facebook iyo waxaad markaa saa u eegtid hunguriga kaa geli maayo. wax macquula inaysan ahayn baad arkaysaa. waxaad sooranaysaa maxaad waxaan kaga mashquuli jirtay iyo aad waqti kaga lumin jirtay. waxaad doonaysaa naag iyo sheeko iyo hawo kale ku gelaysa. marka waxa weeye waa inaad ogaatid dhowrkan qodob soo socda. waa inaad ogaatid haddaad rabtid inaad ka adkaatid. neefsasho waa inaad mar kasta oo kaasigaas kugu soo kaco waa inaad neeftaada dikri salaad neeftaada xag ilaahay inaad u carartid wey oo neefsashada ka bilowdid inaad biyo qabo ku xajisid, inaad cuntadaada bedeshid, inaad telefoonka iska xidhid oo social media iska control garaysid oo telefoonka xitaa internetka dad intid goysid. markaasaad ka adkaan kartaa. jim inaad tagtid oo xoog energy weeye. waxaad helaysaa awood aadan markii hore lahayn oo aad meeshan gelin jirtay baa kugu soo baxaysa awoodda. marka waa inaad waxbarasho, reerin, quraan akhris, jimka iyo sportiska waa inaad waxyaalaha gelisid si aad uga hortagtid. insha allah bal haddii cidi dhegaysato oo cidi faa'iido ka aragto let me know guys, comment, subscribe, say something. thank you.